halkani waa xerada ciidanka tababarka ciidanka ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo lagu soo bandhigay cutubyo kamid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhigaya gaadka cayaar waxaa lagu xusay iyo qotankii sano ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa soo qayb galay xalfadan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana tababar loogu soo xiray cutubyo kala duwan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkani waa xerada tababarka ciidanka ee generaalka oo lagu soo bandhigay ciidanka militariga dabaabaadka baabuurta ciidanka Soomaaliyeed soo lagu xusayo tababarka xerada tababarka ciidanka ee generaalka ee magaalada Muqdisho وعيدك Soomaaliya kuwa loogu talagalay difaaca dalka oo soo bandhigayo dowladtuskii ugu xooganaa ee 26 sano kadib markii ay burburay dowladii kacaanka Soomaaliya waxaa mar labaad soo noqday kacaankii 2017 ee ciidanka Soomaaliya kaasoo uu kacaya madaxweynaha Jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu wacad ku maray inuu dhisi doono ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si loo xoreeyo gobolada dalka Soomaaliya loogana xoreeyo argagixisada dalkeena ku soo duushay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saarnaa tarabuunka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana hormariyay dabaabaadka ciidanka ee baabuurta casriga ah ee ciidanka Soomaaliya kuwooda gaarka ah ee ciidankaas xoreynta caasimadda ee magaalada Muqdisho هذا gudbayo cutubyo ka tirsan baabuurta fulan ee noocooda loo yaqaan mariniska ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaana ay soo bandhigeen tababarkii loo soo xiray iyo ciidankii oo halkaas maraya waxaa ujeedaan baabuurta noocyada kala duwan kuwa qaada hubka culus oo halkaas maraya oo soo bandhigaya dowladtuskii ugu xooganaa ee 26 sano kadib ay dowladani محمد عبد الله فرماجو أي مرلبات عثماني سي وبابورتا قاضي عيدا مضى أو هالكاني كقول بيا أو أيضا ونيا مدح دا صوماليا وحاول بس وشيدين أيام مدحوينها دولة صوماليا مدني محمد عبد الله فرماجو وحانا أو كجاخر يا لسد عيدا صوماليا أو حرية